Bismillahirrahmanirrahiim. Waa Somali News. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa isbarbardhigga awoodda militari ee labada dowladood Masar iyo Itoobiya. Khilaafka u dhexeeya dalalka Masar iyo Itoobiya ee salka ku haya biyo-xireenka weyn ee ay xukuumadda Addis Ababa ka dhisayso webiga Blue Nile ayaa bilihii u dambeeyay xoogaystay. Masar ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay Isbuucan ka codsatay wadaxaajoodka saddex geesoodka ee ku saabsan biyo-xireenka ay Itoobiya ka dhisayso webiga Nile inuu soo farageliyo. Masar inta ay cabashadeeda si rasmi ah uga gudbin Qaramada Midoobay, Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya Degue wuxuu warbaahinta dalka Itoobiya uu toddobaadkii hore u sheegay Masar inay diyaar u tahay in wadahadal wax waliba lagu dhammaynayo oo ay doonayso Itoobiya inay cadaadis siyaasadeed oo ka baxsan wadahadallada ay saarto. Iyadoo boqolkiiba 70 la rumeysan yahay dhismaha biyo-xireenka ayaa waxaa la filayaa in bisha July la bilaabo buuxintiisa, waxaana aad u sii yaraanaya waqtiga lagu dhammaystiri karo wadahadalka. Itoobiya ayaa u aragta in Mareykanka aanu dhexdhexaadin ka ahayn wadaxaajoodka uuna la safan yahay dalka Masar, sida ay sheegtay jariiradda Foreign Policy. Addis Ababa ayaa dhowr jeer ku goodisay inay difaacan doonto biyo-xireenka ayna xaq u leedahay ka faa'iidaysiga biyaheeda. Arrintan ayaa timid kadib markii Mareykanka uu sheegay in dhismaha biyo-xireenka aanan la dhammaystiri karin ilaa inta heshiis rasmi ah laga gaarayo. Hase yeeshee, dowladda Masar ayaa ku doodaysa in haddii ay dhammaystirto biyo-xireenka, uu saameyn ku yeelan doono biyaha Masar ay ka hesho webiga. Haddaba, militari ahaan yaa awood badan, Itoobiya iyo Masar? Marka ay timaado awoodaha militari ee dalalka Masar iyo Itoobiya, militariga Masar waxaa lagu qiimeeyay inuu ka mid yahay 10ka dal ee ugu awoodda badan caalamka dhanka militariga. Shabakadda The Global Firepower oo inta badan wax ka qorta awoodaha militari ee dalalka caalamka ayaa warbixin ay soo saartay 2020kii sanadkii dhammaaday waxa ay ku sheegtay in militariga Masar uu yahay kan 9aad ee ugu awoodda badan caalamka, halka militariga Itoobiya uu noqday militariga 6aad ee ugu awoodda badan dhanka dunida ama caalamka. Awoodda militariga Masar. Wargeyska The Forbes ayaa militariga waddanka Masar ku tilmaamay kan ugu awoodda badan dalalka Bariga Dhexe marka laga soo tago Turkiga oo ah dalka awoodda badan ee gobolkaas. Shacabka dalka Masar oo ku dhow 100 milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara waxa uu wargeyska The Firepower ku qiyaasay in ay yihiin 43 milyan oo qof, halka kuwa howlgalka hore ee gali kara ay yihiin 36 milyan oo qof. Ciidamada militariga ee dhulka ee u diiwaan gashan Wasaaradda Gaashaandhigga ee Masar tiradoodu waxay gaarayaan 920,000 oo askari, halka ciidamada hadda ka howlgala ay tiradoodu gaarayso 440,000 oo askari. Dowladda Masar ayaa sidoo kale haysata ciidamo kayd ah oo gaaraya 480,000, kuwaas oo haddii loo baahdo dagaal gali kara saacad walba. The Global Power waxa uu soo wariyay in Masar ay haysato 4,295 taangiyada dagaalka ah, 11,700 oo ah baabuurta gaashaaman, 2,000
189 oo ah gantaalaha goobta laga rido iyo 1084 oo ah madaafiicda wax duqeeya. Dhanka ciidamada badda ee Masar, waxay shabakadda Global Firepower ku sheegtay in agabka ay haystaan uu guud ahaan gaarayo 316. Ciidamada badda ee Masar ayaa haysta 2 markab oo ah kuwa qaada diyaaradaha, kuwaas oo ay adag tahay in la helo dal kale oo Afrikaan ah oo haysto. Waxa ay xukuumadda Qaahire haysataa oo kale 2 markab oo kuwa dagaalka ah, 8 gujis oo ah kuwa badda hoosteeda duqoorta ama muquurta, 45 markab kuwa kormeera xeebaha, iyo 31 maraakiib oo ah nooca badda aasa miinooyinka ama burburiya miinooyinka badda lagu aasay. Militariga Masar sanadkii waxaa lagu qarash gareeyaa lacag gaaraysa $3 bilyan, waxaana qayb ahaan lacagtaas bixiya dowladda Mareykanka. Ciidanka cirka ee Masar ayaa haysta 215 diyaaradood oo ah nooca dagaalka, 59 diyaaradood militariga ee xamuulka qaada ah, 387 oo ah diyaaradaha lagu tababaro ciidamada cirka, 294 oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikabtarka loo yaqaano, iyo 81 oo ah helikabtarka wax weerara. Haddaba aynu eegno awoodda militari ee dalka Itoobiya. Itoobiya oo ka mid ah dalalka Geeska Afrika ugu awoodda badan ayaa tirada dadka ku nool waddankaas waxay gaarayaan 108 milyan oo ruux. Dadka awoodi kara inay dagaalamaan ayaa lagu qiyaasay 41 milyan oo qof, halka kuwa dagaal gali kara ee haatan u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas ay gaarayaan inta u dhaxaysa 162,000 ilaa 300,000 oo askari. Militariga dalka Itoobiya GFP uu ku soo wariyay in uu haysto 400 oo taangiyada dagaalka ah, 114 baabuurta gaashaaman ee dagaalka, 67 gantaalaha dhulka lagu rakibo ee artilleriga loo yaqaano, 183 oo ah madaafiicda wax duqeysa. Ciidamada cirka ee Itoobiya waxaa la sheegaa inay yihiin kuwo awood badan marka loo eego kuwa Geeska Afrika, waxaana dhowaan ciidankooda ay ku xoojiyeen hanaanka gantaalada difaaca cirka oo ay ka soo iibsadeen dalka Faransiiska. Diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya ayaa lagu qiyaasay 24 diyaaradood oo ah kuwa miiga loo yaqaano, 9 diyaaradood oo ah kuwa xamuulka qaada, 20 diyaaradood oo ah kuwa lagu tababaro ciidamada cirka, 33 diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca ee helikabtarka loo yaqaano, iyo 8 diyaaradood oo ah nooca wax duqeeya. Itoobiya ma laha wax ciidan bad ah maadaama aysan lahayn bad. Qaar ka mid ah warbaahinta Itoobiya ayaa sanadkii hore ku soo warramay in ciidamada Faransiiska ee Itoobiya ka caawinayso dib u dhiska ciidanka badda ee la kala diray sanadkii 1991 kadib markii Ereteriya ay ka madax bannaanaatay Itoobiya, halkaas oo saldhig u ahayd ciidanka badda ee Itoobiya. Inkastoo dowladda Itoobiya aysan si rasmi ah u shaacinin halka uu noqonayo saldhigga ciidamada badda, haddana sanadihii la soo dhaafay waxaa jiray warar sheegaya in saldhig looga dhisi doono dalka Ereteriya, Suudaan ama Jabuuti, iyadoo dadka qaar ay hadal hayeen Soomaaliya. Wargeyska oo soo xiganaya ilo dowladda ah ayaa sheegay in Itoobiya ay go'aansatay in saldhigga ciidanka badda laga dhiso dalka Jabuuti. Sida uu wargeyskaas qoray, arrintan
waxaa lagaga hadlay kulan Abiy Ahmed iyo Ismaaciil Cumar Geele ku dhex maray dalka Jabuuti. Hase yeeshee, wararkaas waxaa beeniyay safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Itoobiya, Maxamed Idriis Faarax, oo yiri warkaas waa war jaraa'idada Itoobiya dhex socda, kuwaas oo sheegay in ciidamada badda ee Itoobiya ay saldhig ku yeelan doonaan Jabuuti. Warkaas ma aha war rasmi ah, ayuu yiri Maxamed Idriis Faarax ayaa intaa ku daray, ma hayno wax heshiis ah oo labada dowladood ay isla gaareen. Haddii ay noqoto in heshiis la gaareen, wuxuu noqonayaa heshiis 3 geesood ah oo dhexmara Itoobiya, Faransiiska iyo Jabuuti. Intaas ayaynu ka hadli doonaa warbixintii aynu uga hadlaynay awoodda military Masar iyo Itoobiya.